السلام عليكم كسر دوادا وزيرك فيلمس مقعيق waa wasiirka maanta waxaan idin hayaa arrin aad muhiim ah oo quseeyo bateriga telefoonka iPhone-ka hadii iOS 14 update ugu dambeeyay haysatid oo telefoonkaagana iPhone yahay fadlan aad ku anfaca waxa tagaysaa setting kadib waxa ka dooranaysaa meesha ay ku qoran tahay general kadib waxa ka dooranaysaa meeshan ay ku qoran tahay background app refresh kulli aad waxa laga yaabaa marka meesha tagtid adii barnaamijyada kugu jira applicationada app kugu jira kulli inay green ku yihiin on ku yihiin laga yaabaa taasna dhibaato wuxuu keenaysaa telefoonkaaga baterigiisu aad u dhamaado meesha waxa ku qoran hadii akhrisid hadii tusaale ahaan oo macnaha kan green ah ka dhigay macnaheedu waxa waaye mar walba oo telefoonkeyga ku xiran yahay wifi ama mobile oo data oo sim card ku xiran yahay refresh isku sameeyna taasna bateriga dhibaato u keenaysa meesha waxa ku qoran turning off apps may help preserve battery life yani hadii aad iska xirtid kuwaan waxyaalaha u baahneen waxay caawinaysaa baterigaaga oo muddo dheer ku shaqeeya aniga hadda maxaa on ah Gmail email Instagram kuwaas refresh isku sameynaysa message-ka oo hel wixii muhiim ah messenger-ka saasoo kale laga soo waca Bible ku ay muhiim Snapchat ku ay muhiim steps-ka waa taqaani kii socodka way markaan soconayo u baahanahay in refresh ku sameeyo socodka iyo xisaabi Telegram waa taqaaniin WhatsApp وهكذا انت كلا لكن واسك حري وجدي كل ويوتيوب كميديا ويذرك وحانو دhan waa iska wada xiray waxaad u baahneen muhiim ah fadlan iska xir si bateriga oo dhaqsi oo kaaga dhamaanin oo wasiirku idinkaga tagay sida in nabadgeliyo hadii oo waxa codsanaysa fadlan comment ku qor waa idin ka caawin doona Ilaahay mac salaama